Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa idin salaam walaalaha igu qaaliga ah meel walba oo dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada janalkayga halkaad igala socotaan waa Fahiima Janal. Qisada aan maanta idiin wado waxay ku dhacday wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Axmed oo ku nool wadanka Finland. Wiilkan ayaa dhanka Facebook iigu soo gudbiyay qisadiisa. Sidoo kale walaalaha kale qisooyinka ii soo gudbiyay waad mahadsantihiin. Qisadeena u gudagalo wiilkan waxa uu yiri waxaan ku noolahay Finland. Gabar walaasheeya oo joogto wadanka Kenya ayaa wuxuu yiri gabar i bartay oo ay markaasi isku wanaagsanayeen. Gabadhii waan sheekeysanay waan ka helay ayuu yiri waxaan ku heshiinay inaan isguursano guur ayaan ku heshiinay waan soo baxay waxaan ugu imaaday Nairobi walaasheeda markaas Nairobi ayay deganeeday caruurna waa ay haysatay ninkeedana waa uu la joogo markaas ayuu yiri kadib gabadhii markii aan guursaday aroos aan dhiganay jawi degana iska galna wuxuu dhahay gabadhii intaa la joog uur ayay yeelatay ani waan soo baxay ayuu dhahay waxaan imaaday wadankii markaas aan ka tagay dhowr bilood adiga sanad camal markii aan maqnaa gabadhii xaaskeygeeda ayaa u soo noqday oo dhahay oo canug ii dhashay xaaskeyga wuxuu dhahay markasta waa ismaqli jirnay sidoo kale walaasheeda ayaan ka wareysan jiray wax dhiba maysan ii sheegi jirin ayadana sidoo kaleeto waqti walbo aan u baahdo ama aan soo waco wuxuu dhahay taleefankeeda waan heli jiray waan wada sheekeysan jirnay sidoo kaleeto waxaan u laabta ayuu dhahay wadankii aan ka imaaday Finland waxaan isku dayay inaan leen u xareeyo gabadhii xaaskeyga ahayd iyo canuga yaraa ee ii dhashay wuxuu dhahay walaasheedii Nairobi deganeed waa ay guurto waxa ay u guurtay Soomaaliya gabadhii xaaskeyga ahayd ma jirin ayuu dhahay qof kale oo xaaladeeda ka wareysanayo ilaa ayada leema ahan inaan waco ayadana markii aan waco wuxuu dhahay si aad u qurux badan wanaagsan ayay iigu sheekeyn jirta marnaba kama shakin jirin wuxuu dhahay Finland markii aan ku soo laabto waxaan isku day inaan leen aan gabadhii u xareeyo waqti aan ku bixiyo leenkii adi wuxuu dhahay ugu dambeys waxaa leenkii gabadhii u soo baxay waxaanan markaas aan jeclaystin xaaskeyga igu imaado dhahay wadankii markaas aan ku noolaa gabadhii iyo wiilkeygii wuxuu dhahay canugii markaas ay dhashay way soo baxeen waxay imaadeen Finland gabadhii waxay ii imaaday oo dhahay ayada oo xanuunsan caajis aad u fara badan oo haayo wuxuu dhahay waa taqaanaa qurbo markaa imaadid iyo markaa Afrika joogto way kala duwan tahay dhaqtaran wuxuu dhahay ula carara geeyay caafimaadkeeda la baara waxaa leeyahay dhahay buu yiri gabadha uur ayay leedahay 3 bilood waxaan ku dhahay buu dhahay sidee uur u yeelan kartaa xaaskeyga hadda ayay ka imaaday Afrika ku dhawaad 3 sano waan kala maqanahay oo hadda ayay ii imaaday sidee ku suurtagelaysaa xaaskeyga inay uur leedahay intaas dhan wuxuu dhahay xaaska maysan fahmaynin luqadda intii aan dhaqtarka aan wada doodeen oo aan wada hadleyno waxaan u sheegay buu yiri ama dhaqtarkii jawaabtii ka soo baxday inay uur leedahay kadibna waan weydiiyay uurkan muxuu yahay bas waxa igu tiribeetay waxay igu dhahday buu yiri guriga nagey waan wada hadli doonaayo wuxuu dhahay aniga oo xanaaqsan oo dheg la qabta aan lahayn ayaan dhaqtarkii ka soo baxnay gurigii ayaan ku soo laabanay wuxuu dhahay muddo fog ayaa isugu keen dambeysay xaaskeyga markii aan Nairobi ugu tagay oo markaas canuga ay dhashay kadib 3 sano ayaa laga joogaa ayuu dhahay waan wada sheekeysanay waxaan ku dhahay buu dhahay uurkan maxaa waaye haddaad ii timid bil iska daayay maalmo islama joogno 3 bilood uur baa laga sheegay uurkan yaa ku yeel waxay igu tiri buu dhahay haddii aan ku sheego uurka qofka ii yeelay uurkan waxa uu yahay waxaan ka codsanayaa in ay nolosheena burburin iyo sidoo kaleeto in arinta markaas aniga i haysato ama wixii igu dhacay aadan ehelkaaga midna u sheegin waxaan ku dhahay buu dhahay balan ma ka qaaday laakiin waxa aan rabaa inaan ogaado canugan calooshaada ku jiro haddii aad rabtid inaan isla sii noolaano gabadhii waxay tiri qalad baan sameeyay qalad baa iga dhacay wiil baan soo dhaweystay aan u haysto walaal inuu caawiyan aan rabay maadaama aad naga maqneed oo naga fogeeday kadibna waxaa dhacday in uu qalad naga dhacay uurkaana oo sidaasi aan ku yeeshto oo canugaani uu caloosheeda ku galay ninkaasna waxa ay tiri ima qabo laakiin waxaa naga dhacay qalad waana sidaas ayay tiri waxaana ka codsanayaa in aadan ehelkaaga midna la wadaagin noloshana aan labadeena ku kala fogaanin intaas marka ay igu tiri wuxuu dhahay waa rumaysan kari waayay dhaqtarkiina wuxuu ii soo sheegay inay uur 3 bilood ay leedahay ayadiina waxa ay tiri ninkaas ima qabo oo waxaan sameeyay qalad sidaas darteed aniga wuxuu dhahay hadda waxa aan sameeyo ma aqaano
reerkeedii ayaan wacay ayuu dhahay, waxaana u sheegay gabadha inay uur leedahay hadda ama mar dhow ama waqti aad u yarna aan isla joogno, uurkaana ay kala timid waddanka Kenya. Sidaas darteed reerkeeda iyo reerkeyga ayaa waxa uu dhahay wada ballansan oo wada hadli doono, arrinteenana soo dhex galay. Gabadhii waa ay qayaanta ayuu yiri, intan ayadii u maqnaa ayay ayadana nin kaleeta soo dhaweysatay oo weliba uur ayay leedahay, canug aan aniga dhalin duudka ma saaran kara ayuu yiri. Gabadh canugeyga hooyadiisna waa ay tahay gabadha oo meelaan uga taga ma aqaano, oo aniga oo jecel ayaan keena buu dhaha qurbaha, waxaana raba nolosha inaan ku midoowno. Dhibka i haysta hadda waxaa waaye ayuu dhahay, canug aan aniga dhalin dusha ma saaran karo. Gabadhii xaaskeyga ahaydna awalba waan jeclaa, haddana waan jeclahay oo canugeyga hooyadiis weeyaan. Marka waxa uu dhahay bal waxa aan sameeyo ila soo taliya, uurkan ay leedahay canugii wuxuu dhahay aan dhalin duudka ma saaran karo, sidoo kale iska soo xaaq oo bannaanka ha loo soo saarana ma dhihi karo oo dembi ayay ugu tahay ayuu yiri. Gabadhii xaaskeyga ahaydna shalay waxaan u guursaday jeceyl iyo in aan nolosha ku midoowno, mana rabo ayuu dhahay hadda inaan kala tagno. Ila soo taliya ayuu yiri wiilkan, aniga oo xaaskeyga ay qayaantay oo ay nin kaleeta gadaasheyda ay soo dhaweysatay ayaa ilaa hadda aan ka sabrin oo aan rabaa inaan nolosha la sii qeybsado ayuu yiri. Laakiin canuga caloosheeda ku jiro ayaa runtii qaada karinin, ama canug aan aniga dhalinin duudka ma saara karo, oo berri canugaasi waxaa dhalay hebel in lay dhaho ma rabo oo ma doonayo. Arrinkan haddii aan qariyo xaaskeyga maadaama ay qayaantay waxay ugu noqonaysaa ayuu dhahay canugii in aniga markaas aabihiis aan ahay, oo maxay ahayd canuga aniga aan dhalin duudka la iga saaro. Taasna ma sameyn kara, aad ayay ugu adag tahay. Waxa keentay inaan familkeyga u sheego oo familkeeda u sheegana waxa ay tahay in canugaasi aan duudka layga saarin oo reerkeena iyo reerkeeda ay ogaadaan in aniga aan dhalin. Intaas kadib hadda waxa uu dhahay waxa idinka rabaa talo, gabadhii in aan furo ma rabo, canugii uurka ay laheedane oo caloosheeda ku jirane ma rabo ayuu yiri in dusha la iga saaro. Taladiina ayaan rabaa, ila soo taliya, waad mahadsantihiin ayuu dhahay. Wiilkan waxaa idin rajeynayaa inaad la soo tali doontaan, sidoo kale qaybta commentiga ayuu ka arki doonaa talooyinka aad soo sii doontaan. Waad mahadsantihiin. Qisadan qisa sidaan oo kaleeta ah gabar ay ku dhacda ayaan aqaanaa, oo ninkeedii oo qurbaha jiro nin kaleeta runtii qalad weyn ay sameeyeen labadooda, uurna ay u qaaday. Runtii gabadhaasi ilaa hadda Nairobi ayay joogtaa. Marka dhibka jiro waxa ay tahay gabdhaheena nimanka marka ay ka tagaan kulli ma la wada dhahayo oo dadka isku mid ma aha, qaar aad u fiican way jiraan. Gabdhaha qaar ee marka raggooda ay ka tagaan rag kale soo dhaweysanaya, aad iyo aad ayay runtii u qaldan yihiin, waana laga qurux badan yahay, mana fiicno. Waayo adigoo ninkaagii kuu maqan, ku biilanayo, guri u joogo, ku sugaya, ama maxay ahayd asigiiba xaas kale uusan guursanin, adiga afar laguma baneen, dumar ayaa tahay. Ninkii haddaad sugi karinin ama aadan ku haysanin markaasi marasho ama inuu ku masruufo, waxaa kuu bannaan inaad tiraahdo walaalow ifur. Laakiin ninkiioo kuu maqan, ku biilayo, sidoo kaleetana rabo inuu isla midoowdiin oo doonayo inuu qurbaha kuu kaxeeyo, haddii gadaashiisa aad qayaanto oo nin kaleeto aad soo dhaweysato oo xaaraan ah isugu tagtaan, soo adduunyo kale oo qalad ah oo aad u weyn maadan sameyn gabaray. Marka gabdhaha waa inay aad u foojignaadaan waxyaabaha qaar, runtii sumcadda ayeen u fiicneenin, tii aakhirana way ku sugaysaa, tii adduunyana way ku haysataa.